17 maxaabuus oo ku kala eedeysanaa dembiyo kala duwan ayaa laga fasaxay xabsiga magaalada Baydhabo kadib markii cafis u fidiyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen sanad guurada afraad ee maamulka Koonfur Galbeed awgeeda. qaar ka mid ah eedeysanayaasha oo loo haystay deemo lagu lahaa ayaa madaxweyne Laftagareen uu ka bixiyay waxaana maanta si buuxda ay u heleen xuriyadooda. wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay weheliyaan saraakiisha ciidamada asluubta iyo bahda garsoorka ayaa si wada jira u kormeeray xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo oo maxaabuusta ah la cafiyay laga sii deynayay. taliyaha ciidanka asluubta Koonfur Galbeed Soomaaliya Aadan Ali Maxamed ayaa si aad uga mahadceliyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo cafis u fidiyay maxaabuustan ku jirtay xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo sanad guurada afraad ee madaxweynaha awgeeda. ilaalin warqab sidii ka fiilaysiin ku sugan dawladda Koonfur Galbeed maxaabiis iyo haan ilaaliyaan sidii warhay madi walhalayaan sidii warqab fadi كل ونصدق مدوينا وسيرك الدارة وسيرك جين كسر إلهين محضرين إلهي شك محضرين السجنان حسه هالين خارج باي داودي هال خارج باي بعض السلم خارج باي ونجيك دبا تن محضرين قاري هرت فرها البور يا كهذا وايسين. وزيرك وزارة الجرسورك يعدالة كونفور قلب الصومالية مدن حسن عبد القادر ayaa dhankiisa si aad ula dardaarmay maxaabuusta maanta laga sii deynayay xabsiga magaalada Baydhabo waxaana si gaar ah ugu mahadceliyay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyada waleenka mahadnaqaanay madaxweyne Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen oo go'aansaday sanad kasta markii sanad guurada la deero maxaabiista dadka walaa yar lan haysado in walaagasna ku biyo cafisna soo biyo walilana madaxweyne eedan mahsanta sidaadan ku warqabta maxaabiistana guud ahaan ka mahadnaqaana sidoo hore taliyaha in sheegay guud ahaan bahda cadaaladda anoo afya ka hadalaaw waliba farxad weyn ah dadkii una gacanta ka haynay oo xabsiga ka jaray oo amni show iyo walbarashadiyo dhaqan celintiyo inta bal ku warqabay in cafis madaxweyne ka halaan waxyaabihii lan haysaday yaraayna lagu biyo oo madaxweynaha taas go'aansado farxad weyn ata sanad guurada madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed dartiye ya arintaas lan soobi maxaabiisna wali ku rajeeyna in dhaqan celin fayl qaadaan walaa hadda ku dambeeyona bulshadiyo ka darsama doonaan rajeeyaan dadka iyo aragayna xabsiga ka jara nahan gurmudaan iyo oo fayl shaqeysadaayno dadkaas ku warqabayaan ay rajeeyaan eedan mahadsantiin warka mas'inka badayaw maxaabiista dadka ilaaliyay oo asluubta haddii sarkaal haada lahay haddii taliye haada lahay haddii dabla haada lahay biyona waajib shoona gududeen waana mahadgaara yasiyaan xabsigan Baydhabo cariiri shay iyo waxyaabaha ku dhiman runtii wal una eedan la soo noo hasay ahaata daruuf kasta oo la ka jara ya haddana eedan ka shaqeeyaan walwiinka gobodeen marka walisan lana isina waajibkiina guduteen eedan mahadsantiin lana guud ahaan marka bahda cadaaladda asluubtana mahadnaqaas madaxweynaha mahadnaqaas maxaabiistana saasa kala dardaarmaan Siraaj Sheikh warbaahinta qaranka Baydhabo.